isagoo ummadda wax baraya khudbad cajiiba ayuu nebigu ka jeediyey sala allahu calayhi wasalam khudbatulcarafa ciyaar ma ah sabootinti khudbatulwidaac ayuu xagga nebigu ka jeediyey khudbad laga qoray kutub khudbadda saddex arrimood baan ka soo qaadanaynaa saddex arrimood oo nebigu sala allahu calayhi wasalam aad iyo aada ugu nuuxnuuxsaday oo iskortaagay oo ummaddiisa iyo khalqiga uu u bayaaniyey nebigu calayhi الsalaatu wasalaam qadiyada koobaad alqadaa cala tamyiizi alcunsuri in lagaga qaado oo la baabi'iyo oo la dumiyo oo laga hortago midab kala sooca islaamku ma yaqaano ka cad ka madow ka cas intuba waa sawaasiya way siman yihiin cinda allah ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay agtiisa waxaa inigu khayr badan ka inigu cabsida badan waxaa laga yaabaa miskiin faqiira oon waxba haysan oo albaabada laga xidho oo la oqoon inuu yahay ka cinda allaahi inoogu khayr badan ilaahay agtiisa hadduu inoogu cabsi badan yahay idan meeshaasi nebigu sala allahu calayhi wasalam qadiyadaasu la dagaalamay atamyiiz alcunsuri in lala dagaalamo oo laga hortago midab kala sooca nebigu bilaal buu yidhi yaa bilaal adigu sayid baad abubakarna waa sayid akhawaan walaalaa tihiin cumar alkhadaab iyo suhayb arumi waa walaalo caliy bna abi aalib iyo salmaan alfarisi waa walaalo islaamku wakaa wuxuu ka hortagay oo la dagaalamay midab kala sooc carab inagama fadli badna cajabna carab kama fadli badna kaa casi kaa madow kama fadli badna marna ilaahay agtiisa waxaa lagu kala fadli badan yahay waa alla ka cabsiga qadiyada labaad oo nebigu sala allahu calayhi wasalam khudbaddiisaa ku soo qaatay maalinkaas waa xuquuqu lmar'a haweenayda xaqeega haweenaydu waa insaan mujtamaca markii la qaybiyo rag iyo dumar baa loo qaybiyaa qayb bay yihiin qaybta kale ee raggana iyakaa dhalay dumarku iyakaa kul isku ah dumarku nebi walba yaa dhalay ilaahay siduu u karaameeyey calooshoodaasa lasoo wala maray dumarka iyadaa soo saartay oo caloosheeda uu ka soo baxay nebi iyo weli iyo saalix iyo khayr iyo hogaamiye iyo caloosha hooyuu soo wala maray nebigu sala allahu calayhi wasalam xuquuqulmar'a inay tahay qof dadka lamida xaq ay leedahay ayuu nebigu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam khudbaddaas qadiyadda saddexaad uu nebigu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam waa qadiyatu xuquuq اlinsaan qadiyada xuquuqu insaanka ee dadku inay xaq leeyihiin qofku xaq buu leeyahay ilaahay baa insaan ka dhigay muxtarama caqli baa la siiyey walaqad karamnaa bani aadam laqad khalaqna اlinsaana fii axsani taqwiim ilaahay baa qaabkaa quruxda badan u abuuray insaanku xoriyo xuquuq ayuu leeyahay xor buu yahay fikirkiis caqligiis xataa diintiis faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur islaamku laa ikraaha fi اddiin islaamku xuquuq ayuu siiyey qofka insaanka ah maaha in loola dhaqmo insaanka sida xayawaanka oo kale in la garaaco in la ihaanaysto in la dulaysto ma ah insaankani sharaf buu leeyahay karaam buu leeyahay ilaahay baa karaameeyey adduunkaas oo dhan oo la baabi'iyo iyo qof la dilo
adduunka oo la baabi'iyo ayaa ilaahay agtiisa ka dembi yar in qof la dilo bilaa xaq lagu dilo. sidaasaa nebigu markuu qofku uu weliba muslim yahay xuquuqdiisu way sii biiraysaa, waa zaayid, way adag tahay. nebigu waxa uu yidhi khudbaddaas: ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada. nebigu waxa uu yihi war dhiiggiinu iyo maalkiinu iyo cirdigiina iyo sharaftiinu xaaraan bay kala tahay inaad kala qaadataan oo wax is yeeshaan, sida maalinkan oo kale uu xaaraan u yahay, beledkan ilaahay xaaraan uga dhigay, bishan xaaraan ilaahay uga dhigay, ayaa qofka muslimka maalkiisu waa kaa xaaraan, cirdigiisu waa kaa xaaraan, sharaftiisu waa kaa xaaraan, xoolihiisu waa kaa xaaraan. waa muxtaram, ilaahay baa u ilaaliyey. allah inaad ku timatid ma ah, jago yaruu leeyahay inaad ku durugtid ma ah, cirdigiisa iyo sharaftiisa inaad wax ka sheegtid ma ah. qadfiga maxaa loo dhigay 80 ma qofka laga jeeda waa xasan ku arkay isagoo zinaysanaya, isagoo haddaad markhaati la iman weydid 8 jeedal baa laga jiraya ilaahay agtiis. kii zinaysta 100 baa laga jaraya. waa xaraan. qofka muslimku xuquuq buu leeyahay, ilaahay baa ilaaliyey xuquuqdiisaas. nebigu sala allahu calayhi wasalam kacbada ayuu aagay, markaasaa waxa uu yidhi nebigu: maa acdamaki, kacbay maxaa kaa weyn? wamaa ashadda xurmatik, xurmadaada maxaa ka weyn? nebigu waxaa yihi: waladii nafsii biyadih, ilaahay baan ku dhaartay, lalmu'minu ashaddu xurmatan cinda allaahi minki. qofka mu'minka ah ayaa ilaahay agtiisa ka xurmad weyn kacbadaas. xadiis kale nebigu waxau yihi: kacbada in dhagax loo qaado iyo qof muslima in la dilo, qofka muslimkaa ka dembi weyn. inaad qof muslima aad waxyeeshid iyo inaad kacbada aad waxyeeshid. kacbada waa dhagax, laakiin qofkani waa muslim, waa qof ilaahay baa karaameeyey. qadaaya adduunku maanta xuquuqu insaan iyo iyagaa dadka dilay, hubka waaweyna lagu dilayo ayaa sameeyey, iyagaa sameeyey. qof baan aragnay kuleeyahoon madfac bay soo tuurayaanoo ummad idil ayay ku masaxayaan. waan ku khaldannay kuleeyahin, qof baan moodaynay, qof adduun. haweeneyda waxay ku leeyihin xuquuqda dumarkaan u doodaynaa, xuquuqda dumarka ayaan u doodaynaa. dumarka iyagaa dilay, waxay doonayaan gabadhu inay noqoto yacni wax dadka oo dhan ay wadaagaan, kii soo helaba uu ku reexaysto, inay isqaawiso oo dariiqa marto oo xorriyad weeyaan bay ku leeyihin. xorriyad gabadhu inay isqaawiso, isqaawin baa xorriye ah. isqaawin ma xorriyad ba? qofku xorriyadda xuquuq iyo nidaam baa jira, iyo waxaa jira xad ayaa jira. axibatii fi llaah, diinteena diin ka fiican ma jiro. ilaahay baa ina waafajiyo, ilaahay baan fadligiisa ku helnay. diintaasi waxay u baahan tahay bes in la barto. nin sheekha waxa uu qoray kitaab la yidhaahdo alislaamu bayna cajzi culamaa'ihi, bayna jahli abnaa'ihi wa cajzi culamaa'ihi. islaamku wuxuu ku dhex jiraa dhalinyartiisii oo jaahilka ah, oo jaahilu diinta aan waxba ka garanayn, iyo culummadiisii oo caajistay. labadaas ku dhex jira islaamku. alislaamu bayna jahli abnaa'ih wa cajzi culamaa'ih. diinkan wuxuu u baahan yahay dad fahma, akhriya, dadka gaarsiiyo oo faafiya oo ku faana. nin baa waxa uu yidhi nin aan muslim ahayn oo diinka islaamka akhriyey ayaa waxa uu yidhi: yaa lahu min diin low kaana lahu rijaal. diinkani fiicana hadduu rag lahaan lahaa. rag male, waa agoon diinku. sidaa awgeed axibatii fi llah, waxaa maanta ay hay-aadkaa waaweynee caalamigu ay dadka ugu yeedhayaan oo leeyihiin waxaasaa la gaadhay xuquuqu insaan, xuquuqdii haweeneyda, xuquuqdii geedaha, xuquuqdii xayawaanka. waxaasoo dhan waa kalaam hadra, waxba aan ka jirin.
xaqiiqadu waa diinteena waxa oo dhan uga horeysay qof walba xaq siisay intaasaan kusoo koobi lahaa wajazaakum allahu khayran wsala allahuma calaa